kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad dunida ka joogtaan waa mar kale barnaamijka sahanka deegaanka maanta waxaan ka soo diyaarinayaa magaalada Mindigale ee dhacda bariga gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Baran. Magaalada Mindigale waa magaalo caana falashada beeraha, dhaqashada xoolaha mubaashir. Dadka ku nool magaalada Mindigale subaxii waxay u dareeraan falashada beeraha oo ay ku yaalin beera ka badan ilaa 100 beerood. sidoo kale dadku waxay subaxii u soofaan lana soofaan xoolo dhaqashada oo markaasi ay qararka iyo jeexyada ilaahay uu raxmaadkiisa uu ku shubo kana soo baxa geedaha iyo weliba cawska markaasi xooluhu ku noolaayeen xilliga jiilaalka oo ilaahay ka soo saaray ayay xilliga hore aroorta hore markuu waagu baryo ayay la soofaan xoolahooda. waa kan mid ka mid ah bulshada beeralayda ee ku nool magaalada Mindigale oo iga waramaya say markaasi bulshada reer Mindigale ay u fashaan beeraha iyo waliba say markaasi ay u dhaqdaan xoolaha. beerahan maanta aynu ku dhex jirno waad aragtaa waxa weeye magaaladu waa beeraley, waa xoololey, waa dhulka zuruucda ah ee aabba oo ah xijigii ayaa ku dhow iyo maydigii. beeri waa kuwan, xoolihii waa kan weeye. magaaladan waxa ay leedahay ilaa 100 beerood ayay leedahay. waad aragtaa dhirtii waa la guranayaa. dhirtan ama hoos joognaa waxa weeye dhirtii laga guranayay deemiraha weeye. sida ayay markaa wax ku noqotay magaaladii beeraha iyo magaaladii tacabka iyo magaaladii bilicda iyo magaaladii waxa weeye miraha iyo zuruucda weey. xagee biyo ka helaan beeruhu waxay ka helaan biyo. beer kasta waxay leedahay ceel aad bay beeraha ugu dhib qabaaneen ceelka ugu dhib qabaaneen. ceel kasta beer kasta iyada beer qodatay. qoditaankaasna waxa weeye de marna way dowraaneen oo biyuhu way tagaaneen, markii xilliga roobaadkuna way soo dhawaadaan. sida daraadeed marka waxa weeye insha Allah hadda waxa la rajeynayaa in roobkii yimaadaan. waa xilligii biyo kor u soo bixi jireen, xilliga abaarahana way dowraan. marka ceelasha ma gacanta lagu qoday mise ceelasha waxa lagu qoday gacanta lagu qoday, riig lagu ma qodin. qof kasta kharash intaas oo $1,000 baa kaga baxay. marka biyo ku filan beeraha ma leeyihiin? biyo ku filan waa markii ay barwaaqada tahay oo kale waa leeyihiin, laakiin markii abaartu jirto aad ayay ugu yar yihiin. midho noocay ka soo gabeera biraha waxa ka soo baxa sida timirtii, saytuuntii, liintii, waxyaalahaas kala ka soo go'a. khudaarta ma ka baxday iyadoo qudaarta hoose way ka baxdaa, aad bay u badan tahay. waxa weeye waxa ka baxa waxa shayga la yiraahdo basasha ayaa ka baxda, barbarooniga ayaa ka baxda, yaanyada ayaa ka baxa, baamiyaha ayaa ka baxa, wax barbarooniga ayaa ka baxa, waxaas oo dhan baa ka baxa. magaalada Mindigale waa magaalooyinka xagga beeraha ee gobolka Sanaag ku horumaray oo markaasi kaafiyay magaalada Mindigale iyo waliba magaalooyinka kale ee ku dhow. waa Axmed Cabdullaahi Ciise Axmed Cashuur, magaalada Mindigale ee gobolka Sanaag.